xilkii xukunkii iyo kursigii aabihii la wareegay wiilkii yaraa markuu xukunka la wareegay wixii ugu horeeyay uu qabto uu fuliyo waxay noqotay inuu askartiisa isku waco uu yiraaho waxaan rabaa inaad raadisiin ninka hebel iyo hebel la yiraaho waa macalinkiisa marka taa waxaa ka dareemaysaa inta uu wiilka joogay inuu qalbigiisa ku hayay dhibaatadii uu ninkaas u geystay. bismillaahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. asxaabta qaaliga ah waan ku faraxsanahay inaan mar labaad isku soo noqon anagoo caafimaad qabno. waxaa dhammaan waan salaamayaa asxaabteeda iyo kuwa jidka kusoo jiro iyo kuwa mustaqbalka ii imaan doona dhammaan. idinkan waxaa idinku ahay walaalahayga qaaligaad tihiin. aad iyo aad waxaan ku dadaalayaa inaad sheekooyin waxgal ah oo wax badan aan ka faa'iidaysano aan soo gudbiyo insha allah. clipkii aan shala duubnay videogii aan shala duubnay ayaan rabaa inaan caawa dhammaystiro insha allah. meel walba aad joogtiin waxaan idin leeyahay ramadaan mubaarak. ramadaanku wuu dhammaaday, ilaahay khayrkiisa hana siiyo, kuwa ka faa'iidaysto oo ramadaanka dambena caafimaad ku gaara allah naga dhigo. clipkii videogii shalay ayaan dhammaystiri doonaa insha allah. sheekadii boqorkii yaraa iyo macalinkii dhex martay. macalinka muxuu noqon doonaa waataan shalay ku gabagabeeyey. caawa idin bilaabi doonaa insha allah. macalinkii waa la keenay, boqorkii yaraa ayaa lasoo hor fariisiiyey. boqorkii wuxuu yiri niyahow mii garanaysaa? kaasuu yiri haa waa ku garanayaa. boqorkii wuu xanaaqay oo waaba ika seemiyaa u dhahay, waaba ika seemiyaa sidii aad ogeedna waad ii gashay. markaasuu yiri haa seen ku aqooni, wiilkii yaraa aan wax bari jira soo ma tiid adiga. markaasuu yiri boqorkii yaraa waayahay haddaaba i garanaysa waa fiican tahay, ii sheeg sababtii maalintii igu kaa dambeysay aad igu qaraacday, sabab la-aan waxaad ii qaraacday ii sheeg u dhahay. markaasuu macalinkii wuxuu yiri waxaan kuu qaraacay aabbaha wuxuu iigu kaa soo diray in aan wax ku baro, waayo aragnimadeyda iyo aqoonteyda aan wax kaa siiyo. casharkii maalintaas aan ku siiyen wuxuu ahaa casharkii ugu muhiimsanaa ee aan ku siiyo ahaa, casharada aan ku baray kii ugu muhiimsanaa u ahaa. sababtoo waxaan ku barayuu dhahay inaan dadka la dulmin oo la iska dulmin. haddii aan aniga ku qaraaci lahayn uu dhahay mabay xasuusnaa lahayn, waa iska keeloobi lahayd, dadkana waa iska dulmin lahayd. marka casharkaa wuxuu ahaayuu dhahay kii ugu qiimaha badnaa oo aan ku baray uu ahaayuu dhahay. marka boqorkii yaraa wuu garwaaqsaday in casharka fiican la baray, dadkana aan la iska dulmin. wuu soo istaagay, madaxuu ka dhunkaday. markuu dhunkaday kadib wuxuu yiri waxaan kaa dhiganayaa la taliyahayga. marka sheekada meeshaasay ku eg tahay. sheekadaasayto waxaan ka faa'iideynaa in dadka madaxda naqanayo oo dadka hogaaminayo ay dadka iska dulmin, oo dulmiga uu xaraan yahay oo aan dadka la dulmin. waxaan kaloo ka baranaynaa dadka way aragga ah oo caqliga u saaxiibka ah oo mustaqbalkooda fiican yahay oo ildeelgaradka in ay madaxda la tashadaan. marka asxaabay intaasaan kusoo gabagabeynayaa. asxaabteeda qaaliga sheekadii intaasay ku eg tahay. aadna waxaan jeclahay inaan laga wada faa'iidaysto insha allah. waan ka wada faa'iidaysan doonaa. hadda kadib waxaan idiin soo geli doonaa sheekooyin sidaan oo kale ah, qiimo badan, wax badan aan ka faa'iidi doono. maalin walbana hal sheeka idiin keeni doonaa haddii alla yiraaho. waxaad tihiin walaalahay aan jecelahay, waxaad tihiin qoyskeygii oo kale. idinka dad idinku nahay. walaalahayga waxaan ka codsanayaa inaad subscribe ii samaysiin oo lacag badan idinkuma fadhiye iska saar leh idinka suul kale dhac ku siiya. dhib ma idinku haysaa, lacag ku jirto ma ku fadhisee ii saar leh. anna waxbaan ka faa'iidayaa idinkane oo idin dadaala wax badan idin keena insha allah. berito insha allah waxaan bilaabi doonaa sheeko anigoo aad u yar aan buug ka akhristay 8 sano jiray. waa idinkaga sheekay doonaa beri markaan barnaamijka bilaabo haddii alla yiraaho. habkii aan sheekadaas markaan akhristay ay ii taabatay qoraaga buuggaas iskale insha allah waan ku xusi doonaa
clipka aan samayn doono haddii alla yiraaho walaalahay waa idin salaamayaa waa mahadsantihiin waxaan idinka rajeynayaa inaa isoo dhaweysiin mac salaamu habeen wanaagsan habeenka idin wacnaado kheyr aa idin rajeynaa